وحدود ودحيس غريغا iyo Macedonia oo albaabka laga galo Yurubta waqooyi halkaasoo kumanaan muhaajiriin ay ku xaniban yihiin dadka muhaajiriinta ah oo badan kuwa ka soo qaxay dagaalada ka socda bariga dhexe gaar ahaan Suuriya ayaa waxay sii maraan si ay Yurub u galaan ilaa 3 dariiq Turkiga oo Greek loo maro ka bacdina Macedonia iyo Liibiya oo Talyaani laga galo iyo ka saddexaad oo ah in ay Masar ka tagaan nasiib darro wadamada Yurubta waqooyi qaraar ay soo saareen waxay ku sheegeen in aanay qaabili doonin muhaajiriinta ku soo qaxaya wadamadooda tiro dad lagu qiyaasay ilaa 30,000 oo ruux ayaa ku xaniban xuduudda u dhaxaysa Macedonia iyo Greek kuwaasoo markii ay damceen inay Yurub galaan xuduud xiran iyo rasaas diiran loogu jawaabay dadka muhaajiriinta ee ku sugan xuduudda Greek iyo Macedonia ayaa isugu jira dadyow ka kala yimid wadamo badan oo dunida kamida Soomaaliduna ay kamid tahay inkasta oo ay jiraan tiro aan badnayn oo Soomaali ka baxda dalka Greek una dhaafa dalka Macedonia haddana waxa jira dhalinyaro fara badan oo ku sugan dalka Greek caasimadiisa Athens kuwaasoo ku xaniban halkaasi dhibaato xooggan ka soo gaadho muddada ay halkaasi ku sugnaayeen dad lacag laga dhacay way jiraan laakiin aniga horta wax dhibaatooyin ma soo ka jira dhibaatooyin badan wadanka Greek gaar ahaan Athens waxa ku xidhan Soomaali badan waxa lagu dilaa Soomaali badan xuquuq iyo wax walba ma leh aad iyo aad baa u salaamtay waxaan dhibaato ka dareeminaa marka hore cunsuriyiin baa joogta dhalinyarada aad u disha socodkii baa lagu dilayaa dhalinyara ku weeraraysa nafti baad u baqanaysaa marka labaad waxa dhibaatada taalaax weeyaan sharcigii baa bil quraata lagu siiyay bil quraatana kaga baxbaa lagu marka laga reebo tirada ilaa dhowr wadan oo qaaradda Yurub kamid ah inta badan Yurub waxa adkaatay habkii muhaajiriintu u gali jireen iyadoo kuwii galayna lagu adkeeyay sharciyada wadamadaasi Nimco Muuse Axmed oo ku sugan qaaradda Yurub ayaa ka waramay xaaladda muhaajiriinta socdaalka dheer u soo galay sidii ay Yurub nolol uga raadsan lahaayeen horta Yurub waxay ma yaalaan hana ku sahmayaan inaan Yurub timaadaan wixii naga dambeeyay markaan Afrika joogay fariinta kale waan maqli jiray laakiin waxaan suran jiray dadku waxay sheegayaan been imika waxaan ogaaday inay dhabti tahay berefooda ayaa dhaxamo gaajo Afrika ma kuma gaashan jirin baa halkan baan ku gaajoonaba haddaba maxay ku dambeyn doontaa qaraarkan wadamada Yurub qaar kamid ah ay ka soo saareen ee ku wajahan muhaajiriinta xaaladda muhaajiriintu say noqon doontaa haddii go'aankan sidaa uu ku sii socdo